bismillahi raxmaani raxiim kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka xulka ciyaaraha qodobada aad ku maqli doontaana waxaa qayb ka ah kooxda Radson oo guul ka qaadatay naadiga midnimo horseed iyo dekada oo galabta kulan adag ku wada leh garoonka Engineer Yariso Aston Villa oo tartanka ka reebtay kooxda Leicester City West Ham United oo martigelin doonta horyaalka kooxda Liverpool kulankii baaqigu ahaa ciyaar la isla gaaray waqti dheer ah oo kooxda Milan ee guul ka gaartay kooxda Torino ciyaaraha ugu xiisaha badan maantana waxay yihiin Manchester United iyo sidoo kale Manchester City oo wada ciyaari doona Real Madrid oo iyaduna ciyaari doonta naadiga lagu magacaabo Manchester United oo maanta tijaabada caafimaadka u mari doona ciyaaryahanka lagu magacaabo Bruno Fernandes isla United oo ka dhigaysa barnaamijkooda koobaad ee suuqan ciyaaryahanka lagu magacaabo Maxi Gomez wararka kale ugu hadal haynta badan barnaamijku waad ku maqli doontaan waa mar kale iyo barnaamijka xulka waa tahay dhegeystayaal mar kale ismaqal wacan barnaamijkeena ayaan sii gudagelaynaa waxaan ku bilaabi doonaa ciyaarihii ka dhacay waa kulanka horyaalka Soomaaliya Premier League Radson oo guul ka gaartay kooxda midnimo ciyaar kale oo adagna waa galabta la balansan yahay iyadoo ay dhaxayaan kooxaha horseed iyo sidoo kale dekada balse intaan ciyaartaas weyn guda galin ugu horeyn daariqa stuudiyaha ee golo sugan ayaan jecelahay inaan wax ka weydiiyo ciyaartii shalay ee kooxda Radson guusha ka gaartay naadiga midnimo oo ka tirsan horyaalka Soomaaliya Premier League daariq ugu horeyn soo dhaw markii xigta bal ciyaartii shalay ee Radson iyo midnimo haddii aad inoogu horeyso labada kooxood ka hor kulankaasi waxay lahayn min 4 dhibcood iyadoo Radson laba guul daro oo xiriir ay ku soo dhacday 4 dhibcood lahayd ka soo kulanka shalay 5 kulan hore u soo ciyaartay waa 4 kulan hore u soo ciyaartay laba guul daro ku dhacday kulan way badeen kulan barbaraacay galeen halka midnimo iyagana hore 4 kulan u soo ciyaareen laba guul daro ku soo dhacday kulan bareejo soo galeen kulanna waa ay adkaadeen marka midnimo 4 dhibcood leh iyo Radson oo 4 dhibcood leh ay shalay ku balansanaa garoonka Jeriso iyadoo ciyaarta qaybtii koowaad lagu kala maray gool iyo eber ciyaanka haatan iska haysta gooleynta horyaalka Soomaaliya Premier League ee Mohamed Climate ayaa bandhiga goolasha bilaabay qaybta koowaad gool iyo eber lagu kala nastay markii la soo laabtay ayay goolal heleen ciyaartooyda kooxda kubadda cagta ee Radson aadan oo bedel ku soo galay Radson ayaa goolka labaad dhaliyay halka goolka saddexaad uu ahaa angol kubadda iska dhaliyeen difaacida kooxda midnimo Mauri oo u dhashay dalka Uganda ayaana kubaddu Climate soo tuuray isaga toore marka ciyaartii midnimo iyo Radson waxay ku soo ilaatay 3 gool iyo eber oo ay guusha ku raacday ciyaartooyda kooxda kubadda cagta Radson marka Radson waxyaabihii guushii shal laga soo diiwaangeliyay waxaa ka mid ah Mohamed Climate waxa uu dhaliyay goolkiisa lixaad ee xareedkan 5 kulan oo saftay kooxda Radson isagoo bilow ay u tahay horyaalka Soomaaliya Premier League sanadkan 6 gool ayuuna shabaqa hubsaday waana gool dhaliyaha ugu sareeyay sanadkan horyaalka Soomaaliya Premier League xiddig ku soo xig goolinta waa Cabdiqaadir Eno Benteke oo 4 gool iskale Abuukar Mukhtaar oo ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Radson 3 gool uu leeyahay Memorial oo ka tirsan kooxda Gadiid 3 gool uu leeyahay Faisal Xaashi 3 gool uu leeyahay Xasan Cabdinuur Geesi xasaas isagana 3 gool uu leeyahay si lamida waxay ku soo laabteen wadada guulasha ama guusha kooxda kubadda cagta ee Radson kadib guushii shalay ay gaareen hore laba guul daro xiriir ugu soo dhacday wiilasha gadaamo shalay soo laabteen hadda waxay leeyihiin 7 dhibcood halka midnimo ay 4 dhibcood weli leedahay waa tahay kulan adag ayaa galabta la balansan yahay oo u dhaxaysa kooxaha waaweyn ee horseed iyo sidoo kale dekada bal ciyaartaasi dhacdooyinka laga qoray dekada iyo horseed waxa kulankan xiiso u yeelaya waxa isaga hor imaanaya labada macallin ee ugu wanaagsan ee Soomaaliya marka laga fiiriyo macallimiinta wadanka Soomaaliya ay haystaan waana Yu Cali iyo Cabdi John inkastoo Cabdi John waa Yu Cali uu tarbuunka ka daawanayo haddana falsafada ama safka isaga soo bixinaya waana kulanka ugu dambeeya oo ganaaxa uu kugu siigayo kulamada soo aadan waa uu ka soo degi doonaa tarbuunka labadan kooxood si lamid ah Hanaaye waxay ku kala jiraan kaalimaha koowaad iyo labaad dekada hogaaminaysa horyaalka 13 dhibcood leedahay horseed ayaa labaad fadhiisa 11 dhibcood leedahay marka galabta wiilasha Cabdi John waxay rabaan inay guuleystaan haddii ay guuleystaan waxay tagayaan 4 dhibcood hogaanka waa 14 dhibcood ay tagayaan hogaankan waxay ku qabanayaan 1 dhibic oo nadiif ah laakiin haddii dekada ay badiso horyaalka iyada loo sii calaameynaya waa laga sii cabsanayaa sanadkii afraad oo xiriir ayaan looga cabsanayaa marka tan iyo sanadkii 2014 waxay wada kulmeen labadan kooxood 12 jeer 4 kamid ah waxa adkaatay kooxda kubadda cagta dekada oo 3 sano ugu dambeeyay ku soo guuleysanaysay horyaalka Soomaaliya Premier League halka horseed ay adkaatay 3 jeer waxayna barbarac ku kala tageen labadan kooxood tan iyo 2014 5 jeer
dekada hore 5 kulan ay u soo ciyaartay waxayna leedahay 13 dhibcood waana hogaamiyaasha horyaalka Soomaaliya Premier League aan dib u laabano 5 kulan ay soo ciyaartay dekada kulanka ugu horeeyay midnimo gool la soo gashay dekada gaadiidka gool ugu badisay dekada heegan 2-1 ugu badisay dekada Rajil 2-1 ugu badisay dekada kulanka ugu dambeeyay Jasiir Sports Club ay 2-1 ugu badisay marka 5 kulan ee ugu dambeysay ee dekada ciyaarto kaliya kulankii koowaad oo midnimo ay barbarac galeen inta kale gaadiidka garaaceen heegana garaaceen Rajil garaaceen Jasiirana way garaaceen kooxda horseed 5 kulan ay hor u soo ciyaartay waxay leedahay 11 dhibcood waxayna fadhisaa kaalinta labaad ee kala sareynta horyaalka Soomaaliya Premier League aan dib u laaban 5 kulan ay hore u soo ciyaartay bilowga horyaalka Jasiir gool la galeen Muqdisho Club Ewer la galeen Racing Africa 2 ugu badiyeen gaadiidka gool ugu badiyeen horseedna 2 ugu badiyeen marka laga soo tago 2 kulan oo xiriir ah oo kala ah Jasiirna gool la galeen MCC oo Ewer la galeen Racing gaadiidkii Rajil isku soo dareen oo 3 kulan oo xiriir soo guuleysan galabtana dekada isaga hormaaneen labada macallin way kala tirsadaan guulaha iyadoo sanadkii ugu dambeeyay ee horyaalka 2019 dekada qaadaysa labada lug ay sarkeen marna gool waxa ku badisay waa gool ku kala tageen dekadii horseed halka gool Ewer marna ay ku badisay kooxda horseed marka sanadkii la soo dhaafay ee 2019 horseed 4 dhibc ay ka qaadatay dekada halka dekada hal dhibc heshay sanadkii 2018 laba lug ay sarkeen labada lugba marna laba ku dhamaatay marna Ewer ku dhamaatay 2017 laba jeer ay sarkeen horseed iyo dekada marna waxay ku ilaatay gool marna 2-1 horseed ku badisay sanadka 2016 laba lug ay sarkeen labada lug kulan 2-2 ku dhamaaday kulan dekada 2 ku badisay marka kulankan isha lagu wada haya iyada labada kooxood xifaaltan xoogan oo ka dhaxeeyo dagaal xoogan ka dhaxeeyo labada macallin ciyaartooyda labada kooxood waxay haystaan ciyaartooyda ugu wanaagsan ee Soomaaliya khadka dhexe horseed waxa ku jira Ibrahim Rasta Xasan Cabdul Geesi Xazaasi iyo waliba ciyaaraanka liira Cabdullaahi Cali Bile dekada khadkooda dhexe waxa ku jira Daawud Cabdullaahi Tuwal lagu daray ciyaaraanka liira Abbas Amin iyo Cabdi Atoosh si lamida difaacida weerarka iyo khadka dhexe aad isaga dagaalamayaan labadan kooxood ee galabta kulankooda labada sugayo waan arki doonaa natiijada ka soo baxda ciyaarta soo dhaxaysa labadaasi kooxood ee ka tirsan kooxaha waaweyn ee horyaalka Soomaaliya Premier League وحقاق هدي أن قضبضة كلا برامج كسي أن بقى ترتن كي في الكابكا يا وحاوذ عياري كوحا أستون فيلا إي لستر يدو ناديق أستون فيلا أي قسارة قدوسيسي كوحدة لستر سي waxaana ay uga badiyeen 2 gool iyadoo ciyaaryahanka lagu magacaabo Matt Target uu ka dhaliyay 12 daqiiqo goolka koobaad kooxda Leicester balse ciyaaryahanka kooxda ee Leicester City ee Kelechi Iheanacho laacibkii hore ee Manchester City ayaana ka dhaliyay goolka barbaraha 72 daqiiqo markay ahayd balse caawin uu sameeyay ciyaaryahanka lagu magacaabo أحمد المحمدي لما تكي عيارته سجاشنكا أيو كل اللي عياريها كلهم مجعبه ترسجاد سيئة أيان أقبضيان لبقولي جول haddaba waxyaabihii laga diiwaangeliyay markaan eegno kooxda Aston Villa waxa ay gaartay finalka iyo Cup-ka 9 jeer waxayna la xirtay kooxda Manchester United kaliya Liverpool oo 12 ah ayaa in ka badan tigsiga finalaha tartankani kaga badan Leicester City waxa markaa laga ciribtiray tartanka iyo Cup-ka semi-finalkiisa markii ugu horeysay waxayna u soo baxayeen mid kasta oo kamid ah 5 jeer oo ay ka qayb qaateen Leicester City waxay isku dayeen 43 shoot oo ciyaarta ay la qaateen kooxda Aston Villa ah marka la barbardhigo kooxda ay la ciyaarayeen waxay sameeyeen 12 waxayna ku dhaliyeen 2 gool tartankan naadiga Aston Villa waxay soo gabagabaysay Brendan Rodgers 32 kulan oo unbeaten uu yahay kulamada maxalliga ah ee uu ka qayb galo tartanka EFL Cup-ka FA Cup-ha Scottish League waa Scottish League Cup-ka iyo sidoo kale Scottish Cup-ka waxaana uu haystaa 28 guulood iyo 4 barbara ah waxaana waqtigaasi uu ku soo kala qaatay kooxda Liverpool Celtic iyo sidoo kale Leicester waxay noqonaysaa qasaaradiisii ugu horeysay oo uu la kulmo macalinka Rodgers tan iyo Villa markay ku garaacday Liverpool 2014-2015 FA Cup-ka semi-finalkiisii ciyaarahanka lagu magacaabo Jack Grealish waxa uu ku lug yeeshay 16 gool oo dhammaan tartamada kooxda Aston Villa xilli ciyaareedkan ah 9 gool waa uu dhaliyay 7 caawiye ayuu ka ahaa waxa uu ka badan yahay laacibiinta kale ee horyaalka Premier League qadka dhexe ka ciyaara dhanka kale markaan eegnana tartanka Coppa Italia ayaa la ciyaaray kooxda AC Milan
waxay markaa ku badiyeen xilli dambe oo waqtiga dheeriga ah 4 gool iyo 2 oo ay la qaateen kooxda Turin tartanka Coppa Italia. ciyaaryahanka lagu magacaabo Beneventura ayaana 12 daqiiqo goolasha bilaabay. ciyaaryahanka lagu magacaabo Antrebic ayaana ka gacan siiyay, balse waxaa laga barbareeyay 34 daqiiqo qaybta hore ciyaartaba. ciyaaryahanka lagu magacaabo Bremer ayaana dhaliyay goolka barbaraha isagoo ciyaaryahankan mar kale shabaqa gaaray 17 daqiiqo qaybta labaad ee ciyaarta, balse xidiga lagu magacaabo Hakan ayaa dhamaadkii 90ka ciyaarta ka dhaliyay goolka barbaraha ah, waxaana sidaa loogu baahday in waqtiga dheeriga ah la isla aado. ciyaaryahankan ayaana 106 daqiiqo markay ciyaarta maraysa Hakan dhaliyay goolka saddexaad ee guusha 3 dhibcood dhankooda xijiyay kooxda Milan kadib Frank Kessié caawin uu sameeyay, balse Zlatan Ibrahimovic oo ku soo laabtay kooxdan ayaa dhaliyay 108 daqiiqo goolka afraad ee kooxda. waxaa jira ciyaar horyaalka Premier League oo la ciyaari doono iyadoo kooxaha West Ham iyo Liverpool ay ciyaari doonaan kulankoodii baaqiga u ahaa. naadiga West Ham ayaa la socon doonta goolhayahooda lagu magacaabo Fabianski kaas oo ku dhow inuu ka soo laabto dhibaato boodada ah. Hamris ayaa sidoo kale qiimeyn doonta ciyaaryahanka qadka dhexe ee lagu magacaabo Robert kaas oo u dagaalamaya inuu ka guuleysto dhaawaca jilibka ah. ciyaaryahanka lagu magacaabo Ryan sidoo kale Philip Anderson, ciyaaryahanka Yarmolenko iyo sidoo kale Arthur iyo Jack Wilshere ayaa wali dhaawac kaga maqan kooxdan. tababaraha Liverpool Klopp oo 11 bedel ku sameeyay kulankii Shrewsbury ee FA Cup-ka shaxdiisa ayaa dib ugu yeeri doona ciyaartoydiisa waaweyn kulanka maanta. waryahanka Sidomane ayaana ka maqan kadib dhaawac yar oo ka soo gaaray muruqa. naadiga West Ham waa guul la'aan marka la eego 6 kulan oo Premier League ay ka hortagtay kooxda Liverpool iyaga oo haysta 2 barbaro iyo sidoo kale 4 khasaare ah tan iyo markii guul 2-0 ah ay ka gaareen bishii January ee 2016 markii ay ka hoos ciyaareen Slephenville. Liverpool waxay qasaartay labada kulan ee ugu horeysay ee banaanka ee kaga hortagtay kooxda Hammers inta ay ka hoos ciyaarayaan macallin Jurgen Klopp. labadaba waxay ahaayeen Upton Park, balse waxa ay guul haystaan 2 ka mid ah saddexda kale ee ka soo hartay marka la eego dhammaantoodna waxay ahaayeen ciyaar ka dhacday garoonka London Stadium. Hammerska waxay markaa haysataa marka la eego garoonkooda 11 dhibcood, waana heerka ugu hooseeya ee kooxi ay ka haysato taasoo ah Southampton. tan iyo bilaabashadii October 2019 ma jirto koox ayaa leeyahay dhibcaha yar aroosatay oo 11 ah ama qasaartay kulamo badan oo 11 ah Premier League kooxda West Ham. ciyaarahanka lagu magacaabo Michael Antonio waxa uu dhaliyay 4 gool 5 kulan oo ka soo muuqday Premier League ee uu kaga hortagay kooxda Liverpool isagoo dhaliyay 4 gool kaliya. ciyaaryahanada ee in ka badan goolasha ka dhaliyay kooxda Jurgen Klopp ee Liverpool waa ciyaaryahanka lagu magacaabo Jamie Vardy sidoo kale Harry Kane oo 7 gool iyo 5 gool ka dhaliyeen. Liverpool waa unbeaten 22 kulan oo Premier League oo ay ciyaaraan maalin Arbaca ah 15 guulood iyo 6 barbara ayayna haystaan. markii ugu dambeysay oo maalin Arbaca qasaare ay ka soo gaartay waxay ahayd kulan ay ka hortageen kooxda Stoke City bishii December ee 2012. naadiga Reds waxay guul haysataa 30 ka mid ah 30 kulan oo la soo dhaafay kaliya waxay dhibco lumisay kulan ay barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda Manchester United October 2019. لاعبka reer Masar Mohamed Salah waxa uu dhaliyay 4 gool oo kulamada Premier League uu ku ciyaaray ee London isagoo ah laacib Reds ah tan iyo markii uu ku guul dareystay inuu wax gool ah dhaliyo 9 kulan ee ugu dambeysay caasimada. ciyaartan u dhaxaysa kooxaha West Ham United iyo sidoo kale ee Liverpool waxa ay ka dhici doontaa garoonka London Stadium waxaana la daawan doonaa saacada markay tahay 10 fiidnimo iyo 45 daqiiqo. waa hagaag dhageystayaal wali waxaad degeysanaysaan barnaamijka xulka ciyaaraha 102.5 magaartisna oo idinkaga imanaya. waxaan gudagalaynaa ciyaarta xiisaha badan ee u dhaxaysa kooxaha Manchester United sidoo kale Manchester City. daafaca Manchester City ninka lagu magacaabo Marc Lambert ayaa shaki uu ku jira kulanka lugta labaad ee semi-finalka Carabao Cup-ka oo ay la ciyaarayaan Manchester United. ninka reer France ayaa ciyaaray 75 daqiiqo kulankii Sheffield United usbuucii hore kadib markii uu ku dhawaad 5 bilood ku maqnaa dhaawac jilibka ah, laakiin lug kuma uusan lahayn kulankii Axad ay la qaateen Fulham. goolhayaha labaad Claudio Bravo isagoo ciyaaray dhammaan tartamada maxalliga ah xilli ciyaareedkan ayaa qarka u saran inuu sii wato
difaacashada shabaqiisa xidiga garabka ka ciyaara ee Loresane oo jilibka ka dhaawacan ayaa ah midka kaliya ee xidig weyn ah ee ka maqnaanaya kooxda. dhanka kale qadka dhexe ee United-ka Matic ayaa shaki ku jira in uu markaa u safro garoonka Etihad Stadium. xidiga reer Serbia ayaa dhaawac soo gaaray kulankii ay 6-0 kaga badiyeen Tramera kaasoo laacibka lagu magacaabo David De Gea sidoo kale Aaron Wan-Bissaka la nasiyay ciyaartaas. Marcus Rashford, Paul Pogba, Scott McTominay ayaa weli dhaawac ah. sidoo kale Marcus Rojo iyo Alex Tuanzeba ciyaarahanka Vincenzo Mensah ayaa ku riixaya tam ahaanshiyo. naadiga Manchester City waxay guul heshay kaliya hal ka mid ah 5 kulan ee ugu dambeysay oo ay gurigooda kula ciyaaraan Manchester United. waxayna haystaan hal guul, hal barbaro iyo 3 khasaare ah. dhammaanna waxay ahaayeen Premier League intii u dhaxaysay 2016 iyo 2019. Manchester United waxay eegaysaa inay sameysay rikoor kulamo xiriir ah oo ay banaanka guul kaga soo gaaraan Manchester City markii ugu horeysay tan iyo markii ay 4 kulan oo xiriir ah kaga soo gaarayeen intii u dhaxaysay November 1993 iyo November 2000. dhammaantoodna waxay guulahaasi ku yimaadeen horyaalka Premier League. marka la eego dhammaan tartamada koox gurigooda ku ciyaaraysa labadani kooxood waxay guul helaysa kaliya 2 ka mid ah 11 kulan ee ugu dambeysay ee u dhaxeeya labada kooxood ee reer Manchester waxayna guul heleen 2 iyo sidoo kale 2 barbaro iyo 7 khasaare ah. xaqiiqdii kooxda markaasi awayga ah ayaana guul heshay 5 ka mid ah 6 kulan ee ugu dambeysay oo ay ku jiraan 3 kulan ee ugu dambeysay. kaliya mid ka mid ah 29 koox ee ku guuleystay semifinalka Liga Cup-ka lugtiisa koobaad oo ku badiyay waliba 2 gool ama wax ka badan ayaa markaasi laga cirib tiray koobkan iyadoo oo Tranmere Rovers ay kala kulantay Aston Villa xil ciyaareedkii 1993-94 markii lugta hore ay 3-1 ku badiyeen lugta labaadna 3-1 isla markaana looga badiyay rigoorayaal 5-4 ah. Manchester City waxay eegaysaa inay noqoto kooxda kaliya ee saddexaad ee gaarta 3 jeer oo xiriir ah Liga Cup-ka finalihiisa waliba si xiriir ah kadib Liverpool oo 4 jeer oo xiriir ah gaaraysay intii u dhaxaysay 1981 iyo 1984. Nottingham Forest oo gaartay iyaduna 1978 iyo sidoo kale 80. Pep Guardiola waxa uu soo baxay 24 marxadda knock-out-ka 23 ka mid ah inta uu macallin yahay waxaana uu guul helayay marka la eego lugta koobaad marka laga reebo markii uu kala kulmay kooxda Monaco 2016-2017 Champions League wareegiisa 16. naadiga Manchester City waxa ay markaa dhalisay 3 gool oo markaa ka tirsan tartanka Liga Cup-ka kulimadooda kulan walba markii la eego xilli ciyaareedkan kaliya koox dhalisay 3 gool ama wax ka badan kulan kastaahi waa oo gaartay waliba finalka waxay ahayd kooxda lagu magacaabo Nottingham Forest oo sameysay 1977 Manchester United waxay u soo bixisay 2 ka mid ah 3 kulan ee ugu dambeysay ee marxaladda knock-out-ka ay gaarto waxaana ay qasaareen ama la kulmayeen lugta koowaad 2 gool waxaana ka cirib tirtay kooxda Olympiacos sidoo kale naadiga PSG waxayna ahaayeen Champions League wareegiisa 16 xilli ciyaareedyadii 2013-2014 iyo sidoo kale 2018-2019. Ole Gunnar Solskjaer waxa uu doonayaa inuu noqdo macallinkii saddexaad ee ku guuleysta 2 kulan oo banaanka ah oo kaga hortaga Pep Guardiola isaga oo markaa macallin ah. waxaa la mid ah Jose Mourinho iyo sidoo kale Jurgen Klopp oo hore sidaa u soo sameeyay kaliya kooxda ee ku garaacday naadiga Manchester City 2 jeer garoonka Etihad Stadium hal xilli ciyaareed waa naadiga Arsenal oo 2 gool ka gaartay 2004-2005. ciyaartan u dhaxaysa kooxaha Manchester City iyo sidoo kale Manchester United Etihad Stadium ayay ka dhacaysaa caawa waxaa la daawan doonaa 10 fiidnimo iyo 45 daqiiqo. haddaba ciyaartan ee labadani kooxood ee ku xafiiltama magaalada Manchester waxaa ila eegi doona oo stuudiyaha igula sugan Xinke Xaaji oo markaasi ah taageere kooxda Manchester United ay sidoo kale Maxamed Qadar oo isna ah dhanka kale ee ka soo horjeeda. ugu horeen waxaan jecelahay labadoodaba in aan si wada jir ugu soo dhaweeyo barnaamijka Xinke iyo sidoo kale Maxamed ku soo dhawaada barnaamijka xulka. dhawaa walaashay barnaamijka waxaan aad u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha radio Himilo iyo farsamayaqaanada aad baan u dhawaa barnaamijka. walaashayna aad u mahadsantahay ku dhawnahay barnaamijka sidoo kale waxaan aad u mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha radio Himilo iyo adigoo ahna bacsiyo barnaamijkan dhammaantiin sidoo kale waad mahadsantihiin
waxaa caawa isqaban doona waa labada kooxood ee aad markaa kala taageertaan ku xafiirtama magaalada Manchester lugtii hore inkastoo ay soo arkeen isla markaana khasaare ee la soo kulantay kooxda Manchester United Hinkey ayaan ku horeynayaa bal ciyaartan maxaad ka filanaysaan horta ciyaar oo gurigeeda oo 3-1 laga soo badiyay macnaha rajada macnaha waxay u badan tahay dhanka City laakiin anaga ahaan taageero ahaan oo Manchester United ah waa waxa oo anagina lagu garanayo oo lagu yaqaano in macnaha oo coming back aan sameeyno soo laabasho soo laabashada waan ku fiicanahay xagga kooxaha kale markii oo Europe markii la eego waad aragtay sanadihii u dambeeyay UEFA Champions League kooxda PSG anagoo ciyaaryahanada oo lafdhabarta kooxda u ahaa oo naga maqnay haddana waad aragtay waxdaraha dhigna oo lama filaan kan sameeyay sidoo kale caawa xataa anaga maana buuxno waan laga maqan yahay ciyaaryahano badan oo kooxda lafdhabarka oo aan naga maqan sida meesha oo u darneed oo ah qadka dhexe koox mar hadii qadka dhexe eber ka tahay ma sahlan hadan oo 3 gool oo nadiif ah laga baahan yahay marka rajadeeda boqolkiiba 80 waxaan rajaynayaa in Man United ay soo bixi doonto waa tahay maxamed qadar dhanka kale waad aragtaa Hinkey oo ah marka taageere United-ka waxaana leeyahay soo kabashada ama dib u soo laabashada wana lagu yaqaanaa inkastoo dhaawacyo ay hareynayaan bal adiga dhankaada ciyaartan maxaad leedahay ciyaartu yani waxay muuqataa dhanka rajada marka la fiiriyo boqolkiiba 90 inay si u badan tahay ciyaar 3 gool farqiga laga rabo Man United waxaan maleynayaa ciyaarta yani comeback ay ku sameeyeen sanadkii 2017 3-2 sax xasuuno oo kooxda kaliya garoonkaas ku baday ee Premier League 38 kulan 19 kulan oo ka mid ah lagu dheelay Etihad Stadium 3-2 labadii gool ee kaambida hor la hormarinay ay noogu bedeleen 3 gool yani one game maahan deertaan 2 games waaye ciyaartan waxay dhigaa 90 minute la dheelayaa waxay muuqataa insha Allah hadii la yiraahdo in gamekan haddana ay taageerada City iyo si aamsanahay iyo qof walba City fan oo aamsanahay in ciyaartan anagu hadda aan u daawo doono faajood qof walba intuu daangadiisii shaahiisa ka soo dhigto oo ay faajood daawo doono sidoo kale waxaa muuqataa gamekii hadeertaan ugu dambeeyay la dheelay in Man City ay ciyaar dheeshay aad u wali ah half time-kii dambe ciyaartu ay degtay loona dijiyay Man United waxay muuqataa ciyaarta yani even waxaas dhahay anigu waxa ciyaaraha ka dhicin ba Man United sameedaha garoonka ay isku soo laaban kaambida dhacdo sida loo leeyo marka fiirsay iyo qaabku dheelan gool ay kala dhaliyeen Bernardo Silva iyo Riyad Mahrez iyo angoolka u dhaliyay Pereira oo iska dhaliyay kulankaas insha Allah waxaan rajaynaynaa qiyaas ani saadaasheeda in aan ku badi doono 2-1 oo aan uga qaadi doono guusha Manchester United saasna aan finalka nolosii fududeeyay finalkeena Aston Villa iyo Leicester City oo dhib lahadna ay naga soo reebtay waxaan rajaynayaa marka taageerash Man United isla joogna si lamida garoonka 90 minutes isla joogna 4 saac iyo 45 daqiiqo 15 daqiiqo rubi dhiman ama rubi dhiman 5 saac min watahay Hinkey markaad eegto kooxdan dhanka daafaca weerarka iyo sidoo kale qadka dhexe xageed is leedahay caawa ugu yaraan waad kaga roontihiin ama waad ka xakameyn kartaan wallahi taa horta maxay ku xiran tahay markii shaxda oo macalinka labada macalin shaxyada markana ay soo bandhigaan markaas ay ku xiran tahay laakiin Manchester City macnaha macalin Pep Guardiola hore u sheegay in macnaha uusan xamili karin ciyaaryahanada oo ku soo ororda wato hadda ka horta ka caawinay ninka Daniel James Marco Rashford oo macnaha raga oo hadda uu xawaaraha badan oo Manchester United inkastoo Rashford uu maqan yahay haddana maxaa la dhanka difaaca Man City waan ka xaran kar laakiin ay dhanka qadka dhexe ma sheegi kari qadka dhexe waa inay awood badan yihiin inkastoo ayaga ciyaaryahanka oo soo wareey Spain ninka lagu magacaabay Rodrigo ciyaaryahankaas waa ciyaaryahan fiican oo fantastic ah markii hadda loo barbar dhigo ciyaaryahanada hadda caaw oo Manchester United ay shaxdeeda ku soo gali doonto oo macnaha qadka dhexe qadka dhexe waa inaga fiican yihiin laakiin waxaan rajaynayaa counter attack ciyaarteena lagu yaqaanay inaan ku sameyn doono Pep Guardiola hore uu cawaadabo kubada counter attack ama dib maryeenta haddii shaxda adiga aad jeclaan lahayd ama kooxdaad is leedahay haddii macalinka uu soo xulo Oli waan kaga adkaan karnaa ama waan soo sameyn karnaa dib u kabasho ciyaartan oo waan gaari karnaa finalaha xidigaha is leedahay ama ku tashan lahayd haddii uu soo xulan lahaa kuwa bad qaba
oo aan shaxda kusoo geli lahay ku sameyn lahay aad sideeda uu kaga adkaan lahaa haddii ciyaaryahanadaasi uu la soo shir tago aad u weyn. waa kaga badin karnaa aado inkastoo macalin ole aan isku halin karin shaxdiisa haddana shaxda ana aan jeclaan lahay waxaa waaye goolahayaha ninka caadiyan oo Premier League wixii ka baxsan oo Europe League aan u xil saarnay Sergio Romero aan usoo xulan lahay xagga difaacan maxaa usoo xulan lahay ninka la dhahay Victor Lindelof oo game kale oo xoogaha uu maqnay laakiin uu soo laabtay Harry Maguire labada garab maxaan ka dhigan lahay Diego Dalot iyo wiilka Ingiriiska da'da yarta Bruno qadka dhex markii la tagana maxaan dhihi lahay ninka Fred iyo haddii la heli karo macnaha ilaa hadda update teamka lama sheegin Axel Tuanzebe aan si filahay lambarka 10 waxaan ciyaarsiin lahay Jesse Lingard labada garabna Antonio Martial iyo waxaan ciyaarsiin lahay ninka loogu magacaabo Andres Pereira ama Angelo Gomez aan ciyaarsiin lahay da'yarta Manchester United lambarka 9aad waxaan ciyaarsiin lahay Greenwood waa tahay shaxdaas haddii aad ku soo gasho ma isleedahay waad ku filan tahay kooxda marka aad u weyn waa shaxda keliya oo hadda caawa oo aan jeclaan lahay inuu macna olay uu ku soo galo waa shaxda keliya waa tahay maxamed qadar markaad joogto kooxda kaasoo horjeeda si lamida su-aalaha aan weydiiyey xinkey haddii aan ku hordhigo yaad isleedahay waa ka qabsan kartaa ama waa kala wareegi kartaa markaad eegto saddexda dhinac ee daafaca qadka dhexe iyo sidoo kale weerarka aad maastahna marka la fiiriyo horta Man United daafaceeda kulanka ugu dambeeyay waxaan xasuusnaa inay dhaliyeen 6 gool masdarsin gool la inkastoo yani team yar dhaliyeen laakiin anagana sidoo kale aan 4 gool soo dhalinay ciyaar yani ay 10 daqiiqo ugu horeysay Roosa qaateen kooxda Fulham waxaan rajeynayaa kulankan meesha ugu badan horta la isku dagaali doono ay tahay qadka dhexe oo ugu awood badan Man United sax hadii loo fiirsho weerarkoodana weerarada yaro aad u dhib badan ay qabaan marka loo fiiriyo Mason Greenwood iyo laacibkan Daniel James Welleska silamida Marcus Rashford oo kulanka hor goolka farqiga dhaliyay oo maqan yahay saddex halka ka dhigay ciyaarta silamida Martial aan rajeynayo inuu kulankan hadduu diyaar u ahayn xitaa rajeynayo inuu imaado marka waxaan rajeynayaa kulankan meesha ugu badan lagu dagaali doono inay qadka dhexe tahay uga awood badan Man United ciyaartanada waxa go'aamiyana ay tahay qadka dhexe Brand kulanka ugu horeeyay marka fiirso Brand Silva oo ah ciyaarta shumac shidaayay oo goolna caawiyo goolna dhaliyay silamida goolka u dhaliyay Kevin De Bruyne oo keenay marka waxaan rajeynayaa meesha ciyaarta uga awood badan doono Man United inay tahay qadka dhexe daaficeenana uusan aadi ahayn laakiin marka loo fiirsho qaybta weerarka waa diir Raheem Sterling lagu soo bilaabo wuxuu ugu iska badan yahay laakiin meeshan ku kalsoonaa inaan Man United uga awood badanahay aaminsanahay tahay qadka dhexe waa tahay inkasta oo labada macalin ee hadda ugu shax bedelka badan ama haysta ciyaaryahana saf labaad oo keed ah waa macalimiinta sida Klopp iyo Pep oo kale markaad eegto safkaaga haddii aad leedahay waan inta goolan aan haysana ka badan waan uga sii badin karnaa ama waa sii niyadeli karnaa ciyaaryahanada is leedahay waa ay ku habboon yihiin caawinay safkan kasoo muuqdaan aad mahadsan tahay horta marka la fiiriyo kulankii hore natiijo aan wadana 2 gool farqi ah oo away ah waxay la muuqan doontaa inaan gool ku soo bilaabi doono Bravo ciyaaryahanka Rijile silamida daafacyada waxaa jooga qabaasana Joy Cancelo oo u badan tahay kulanka inuu seego saas waxaa ku soo bilaabi doona Arbiga Kyle Walker labada CBN waxaa dhili doona Otamendi iyo Fernandinho laakiin meesha tariiqa dooqashada ugu badan oo haysto waa tariiqa saddex ciyaaryahan uu joogto Argentina inuu ku soo bilaabo Angelino labada daafac kale oo Sinchenko iyo Mendy sidoo kale ayna siinayo maadaama kulamada soo dhaweeyay Champions League silamida kula horyaalkan soo dhaweeyeen qadka dhexe marka la imaado DM-ka waxaa dhili doona Ilkay Gundogan silamida waxaa kula masanaan doona Kevin De Bruyne iyo Bernardo Silva weerarka marka la yimaadana waxaa rajeynayaa Riyad Mahrez Jesus iyo inuu ku soo bilaabo Raheem Sterling haddii shaxaas la soo shir tagto يا وحنا مسنا شحاس دان كلن كي هore anigoo normal aan ahay oo Raheem Sterling u dhilay noomaha 3 gool aan dhaliyay Gabriel Jesus haduu joogo waxa way wax ka badan inaan dhaliyay Argentina waa tahay ciyaartan marka aad saadaasha sida saxda oo adinkoo ka eegaya dhinacyada kala duwan ee marka kooxda ama u fiirinaya is aragada kooxdan iyo sidoo kale isku horimaatinka iyo awoodda marka labadan kooxood loo eego
iyo weliba ciyaartoyda hadda badqabka ah ee kulankan kasoo muuqan kara markaad eegtaan maxaad ku saadaalinaysaan waxaan ku horeynayaa xinkey ciyaartan kolley ninka taageeraha mar walba wuxuu jecel yahay inuu kooxdiisa soo baxdo laakiin ani ahaan waxaan isleeyahay ciyaarta inaan kusoo bixi doono 3-1 haddee ka ahaani weysana ciyaarta waxay ku dhammaanaya 3-1 waxaan isla aadeenay extra time rigoore laftirkeeda haddii laisla aado kooxaha waa ku kala wanaagsan yihiin markaad eegto korgoolkulaadyada kooxna waa ay ka niyo jabtaa markii laisla gaaro goolkulaad kooxina waa ay ku farxdaa markii la joogo marxaladaas oo kale kooxdaada dhinacaas marka la joogo ma ku wanaagsan tahay iyadoo aan ogsoonahay kooxda rigoorooyinka ugu badan heshay xilli ciyaareedkan inay tahay kooxdaada haddana lumiska marka la eego kubadahaas la tuuranayaan ay ugu badan tahay aada weyn saana hadda oo aan rajeynayo markii goolayaa oo bravo aan ku arko shaxda oo Manchester City kulli anagna Sergio Romero ninka waa ninkii oo kaliya oo hadda maanta Rashma United 100% ku tashan karaan dhanka markii oo laga soo tago David De Gea iyo markii Lisbarbariga aan iray Romero waa ninka kaliya oo riyooro oo badbaadinta badan waay oo lagu jecel yahay dhanka goolasha marka goolayaasha markaan fiiriyo kulli riyoorada anaga oo soo bixi karnaabo maadaama oo Romero oo meesha uu taagan yahay waa tahay maxamed qadar ciyaartan saadaal ahaan markaad eegto maxaad ku saadaalinaysaa walaalka xinka aad u maadsan horta ciyaartan saadaasheeda markaan ka dhiibto waxay noqon doontaa insha Allah 2-1 inaan kusoo bixi doono ama uga badi doono Man United sidaan hore u sheegaba saas waxaan leeyahay waxay tahay marka la fiiriyo yani bravo يعني waxaan usoo xishaa waxay tahay nasiino aan sina ciyaartooyda kale muhiimka Ederson maadaama yahay ninkaas ciyaarta ninku mar walba kooxda kale wada aan laga marmin soo anoo natiijada isku haleynayo 3 gool aan wato oo awayga waxaan rajeynayaa ciyaarta Salabiyo Eber haddii taas noqon weysana 2-1 ay ku soo dhamaato maayno halkaas ku dirto haddii ay dhici weyso in la isku mari waayo 9-ka ciyaarta loogu talagalay 30 daqiiqo lagu daro la isku mari waayo la isla gaaro goolkulaadyo kooxdaada goolkulaadyada xaggooda sidee isku yihiin mase tahay koox u dabaaldegi karta ama kusii farxi karta haddii goolkulaad la isla gaaro horta goolkulaad marka la tago waa 50-50 yani waxaan xasuustaa kulanka ugu dambeeyay kulanka horeeyay hal iyo eberka aan uga badinay Sheffield in Jesus oo cunay rigoore Guardiola uu dhahay yani hadda ka bacdi Ederson rigooreen ku dhibayna yani halkaas waxay ka tusinaysaa yani ninka rigoore stories marka la yiraahdo Man City ugu fiican uu yahay ilkii Gundogan ninka labaad uu yahay Aguero laakiin haddii labadaas in la waayo waxaan rajeynayaa ciyaartaas adiga boqol inaa badina waa 50-50 yani waa ciyaar yani isbartaale si lamida Man United ayagana lamid waa ciyaar laba rigoor laga badbaashan xasuustaa ciyaar Ellen Rochester adaan qaldanin oo Rashford iyo Martial labadaba cuneen marka waxa waay labadaasba aniga waxaan dhinacaas dalo fiirshay rigooryaalka isku rajaan kana markaad u sii fiiriso kooxdan ciyaaryahanadooda badi oo bogbog ka mid yahay oo Rashford ka mid yahay waxaa jira ciyaaryahano badan oo ilaa 4 rigoora oo ay heleen horyaalka iska qasaariyeen rigoora qasaarintood markaad ciyaaryahanadooda eegto ma tahay kuwa aad ku tashan karto horta mar walba macalinka markuu ciyaarta ay tahay 9 daqiiqo soo dhamaatay 30 daqiiqo yani extra time-kii oo dhamaaday oo halkaas loo fiiriyo waxay u muuqataa macallin walba inuu hubkiisa ugu dambeeyo la soo bixi doono yani oo ciyaartooyga uu ku matal macnaha uu ku tuhmayo inay rigoorooyin qasaari karaan oo meesha ka bixin karo oo ciyaarta keeno ciyaarta marka ciyaartu mid kalba ciyaarta dili kara oo macnaha rigoorada u dhibto even laga yaabo dad kale oo meesha aan markaas isleen rigoor u dhiba oo u dhibtay rigoorooyinka soo marka halkaas marka loo fiiriyo Man United waxa waaye aniga halkaas meel ugu awood badan ma aha marka loo fiiriyo halkaas oo ku simanaa isla rigoorooyin qasaarinka kooxdeeda marka loo fiiriyo waa tahay xinkay qaybihii dambe waan isla joognaa ugu dambeyn taageerayaashaada maxaad dhihi lahayd taageerayaasha kula midka ah ee Manchester kula taageera kulli haddaan Manchester United de hal erey un baan marwalba jecelnahay taas ay guush oo hore oo nagu barbaariyey macalkeena hore Sir Alex Ferguson taageerayaasha Manchester United magaalada Muqdisho nawaaxiga joogaan waxaan leeyahay maalin wanaagsan waxaan in rajeynaa in caaw aad arki doontaan wixii oo dhacay sanadkii hore oo Ole Gunnar Solskjaer uu kusoo caanbaxay UEFA Champions League wuxuu sameeyey iyo sanadkii 2012
isla sidan oo kale ahan city aan ugu reebay rigoorooyinka aan yiraahdo FA kaabkan oo ugu badan 3-2 waa tahay maxamed qadar dhankaaga ugu dambeyn maxaad leedahay taageerayaasha kula midka ah ee kooxdan u sacbatuma horta marka loo fiiriyo taageerayaasha koobkan haddeertan la dheelay Carabao Cup 5 sano ugu dambeysay waxaan xusanaa in 3 kamid aan qaadnay dana qaldane 2 sano ugu dambeeyay aan qaadnay sanadka hore kii kasii horreeyay aan qaadnay markii saddexaad xiriir ayaa markii saddexaad xiriir aan tiigsanayna marka finaalkana waxa waa wadana la soo falaan waxaan rabnaa inaan ayru gaarno horta aad u mahadsan yahay walaalkiin waxa waaye marka waxay taagan tahay yani taageerayaasha waxaan la yarto mar walba aniga qof macnaha guuldarada jecel ma jiro laakiin guuldarada iyo guusha iyo bareejada ama ciyaarta meesha guuldaro hadda marka bareejo ma taala meesha guul iyo guuldaro taala guul iyo guuldaro taala haddana ay taageerayaasha marka Man City Manchester City waxaan nahay diyaar labadaba guul iyo guuldaraba laakiin mar walba waxaan jecelnahay guusha sabab marka waxa waaye waxaan rajeynayaa inaan maanta waxa waaye caawa 9 saac aduu 7 markii koodab mare ninka waa soo wacayna insha Allah ka warna la way soo waraysan doontaan insha Allah waa tahay labadiinaba aad baan idinkaga mahad celinayaa maxamed qadar iyo sidoo kale xinkay aad baad mahadsantiin aad mahadsan qaybihii dambe ee barnaamijka ayaan isla maraynaaye haddii aan eegno kulamada kale ee la ciyaarayo tartanka Spain ee Copa del Rey ayaa la ciyaari doonaa iyada oo kooxda Leones ay la ciyaari doonto Valencia Rayo Vallecano iyo sidoo kale Villarreal ayaa wada ciyaari doona 9 fiidnimo ay ciyaaraad soo gali doonaan caawa 11 fiidnimo waxaa wada ciyaari doona Real Sociedad iyo Osasuna halka Real Madrid ay markaa la ciyaari doonto kooxda lagu magacaabo kooxda Real Zaragoza Zaraada dalka Talyaaniga waxaa laga ciyaari doona Copa Italia Inter Milan iyo sidoo kale Fiorentina ayaa caawa 11 oo ribdhiman wada ciyaari doona halka France Cup-ka laga ciyaari doono dhanka iyo Faransiiska kooxda Paris Saint-Germain ayaana la ciyaari doonta kooxda PSG iyo Barca fiidnimo marka ay tahay Marseille iyo sidoo kale Strasbourgna caawa 11 fiidnimo iyo 5 daqiiqo ayay wada ciyaari doonaan wararka ugu hadalhaynta badan hal iyo laba haddii aan eego kooxda Barcelona waxay dalab goor dambe ay ka gudbisay isku day ay ku doonaysay inay kaga afduubato saxiixa xidiga qadka dhexe uga ciyaara kooxda Sporting Lisbon iyo xulka Portugal Bruno Fernandes kooxda Manchester United wargeyska Mirror sida uu qorayo balse waxa ay qorsheynaysaa kooxdan inay kala soo wareegto Fernandes Sporting isla markaana ama ku siiso kooxda Valencia si ay uga helaan laacibka reer Spain ee weerarka uga ciyaaray Rodrigo wargeyska Isbaana sida uu qorayo sidoo kalena Manchester United waxay sameysay isku day ay ku doonaysay xidiga Valencia 32 sano jirka weerarka uga ciyaara xulka qaranka Uruguay ninka lagu magacaabo Maxi Gomez kaas oo qandaraaskiisa lagu kansali karo ayaa leeyahay 18.5 milyan oo geni kadana sare ayaa laga soo xiganaya barnaamijkeena xulka waana inta nabadgelyo